أحمد شيخ عبد الله متكا أو PhD رسيجرا كنديدنا برنا كا أما أسيستنت كا جامعة كتال ودك تركيا جرام مجال إسطنبول أرمها بريها وحاجة جديدة أنت فوركس كالس كويستي أو برشة صوماليات ويكوجه ورت برد وينو حاجة علماء كهلا يسوونها سائن حارهوان بل أنت سكور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. horta arinta forexiska marka laga hadlayo tijaarada si caam ah casrigan hadda joogno waa laba nooc midii aan la yaqaanay oo ganacsiga oo traditionka ah oo taqliidiga ah oo qof inuu dukaan furto qof inuu yeesho badeeco muuqato oo meel taalin weeyo taas waa bab iyo mid kale oo e-commerce ama iyadoo lagu ganacsanayo qaab electronic ah loo ganacsanayo oo iyadana noqotay businesskii qayb kamid ah ku soo biiray adduunkan casriga hadda joogno markaad fiiriso e-commerce-ga tijaarada iyadana waxay leedahay inta types ay ka kooban yihiin tijaaradan caadiga ah ee traditionka ay ka kooban tahay ayay leedahay laakiin waxay ku kala duwan tahay waxaa laga faa'iideysanayaa cilmiga tiknoolajiyada cusub marka forexiska isaga wuxuu ka mid yahay marka suuqyada cusub oo ku soo biiray ama ka tirsan e-commerce-ga ka tirsan oo ka mid yahay inta aan ka baaranay aan ka ogaaday qayb waxaa jirto forexiska sida suuqa caadiga oo kale ah qofka wixiisa ribeen kara ama ribo la'aanna ka dhigi kara laba option inuu leeyahay iyadoo option ah ribo ah iyo iyadoo uusan ahayn qofka too ku shaqeynaya marka ay ku xiran tahay mar waliba midda uu dooranayo laakiin ma qumana marna in si guud loo xaaraamtinimeeyo suuq furan oo tijaaro electronic ah oo cryptocurrency-ga lagu dhaqmaayo ah casriga hadda jira aniga ilama qumana majmac fatawa qudus shariif maray ka soo saaray arintan laga wareysto oo mawlaadkan lagu sameynayo tijaarada forexiska iyo wax la halmaala ah waxay ku xijiyeen hadaysan riba lahayn xitaa waxay soo qaadanayaan daraasaad qaar ah oo la soo hordhigay iyagii dad ka shaqeeya soo qaadanayaan waxay ku tilmaamayaan in waxba ku jirin wax xaraj ah uusan ku jirin nadiif ay tahay in qofka uu ku ganacsan karo sababtoo saddex shay unba base waa markaa fiirsata forexiska cid wax gadanayso iyo cid wax laga gadanayo oo lala tacaamulayo waa beec mushtarki ah iyo jihad isku xirayso brokerki ah islaamka xitaa markaa fiiriso fiqiga waa ku arkaysaa nidaamkii nabiga dad kula taxay sallallahu alayhi wasallam zakawaadka marka la soo jimci jiray sidii hajirta xitaa marka Allah wato systemka u dhisnaday xiliga Umar bin Khattab baytu maalki marka la soo jimci jiray guddiga la sameeyay jiray qaabka uu shaqeeyay wixii markaa fiiriso waxaa laga soo dhiri karaa intaas oo dhan jihada wax gadanayso iyo jihada kale waxay khiyaar u yihiin inay tacaamulaan iyaga oo wada sax ah ku wada tacaamulaya ku heshiyaan brokerkaas u dhaxay wuxuu yahay waa booski dalaalku fadhiya brokerka booski simsaarka ayuu fadhiya marka lala tacaamula marka islaamiyan ama sharciyan aniga wax dhibaato kuma arkin forexiska sofa dadka qaar ay ku jira barnaamijkan hadda cabsida soo wajahday iyo kuwa raba inay hadda kadib ay galaan maxaad u sheegi lahayd horta waxaan kula dardaarmayaa dadka raba inay galaan inay koodi iyagoo baaritaan iyo aqoon fiican ka haysto cilmo badanna la tashta iyo dad kale khubaro ku ah cilmiga businesska si fiican u yaqaan la sheekaystay hadda caalamka xitaa major waxa ku soo biiray oo Islamic finance loo dhaho cilmo badan oo ku takhasustaa jirto waa laga helayaa muxaadaraadkooda waa la heli karaa qofka isagoo fahamsan horta inuu galo antaas kula talinaha dadka ku jirana waxaan isleeyahay qaarkood oo inay baareen og yihiin dad waxa barnaamijkan waxaa ka beemishtira dad oo diin saaxiib u ah dad shariico saaxiib u ah jiro dad doorson oo jecel risqiga soo galay inuu xalaal noqdo ka shaqeystaa jiro marka saan isleeyahay aniga qofkaasi aan ku hubo inuu xalaal jecel yahay inuu sharciga aaminsan yahay inuu diinta hogaansamayo oo barnaamijkan ka shaqeysanayo ilamaha marka qofkaas saas u taxadarayo inuu ku degdegaa meel oo tashwiish ka jiro marka doctor adi ma isticmaashaa maya ani ma isticmaalo laakiin qorshaaga miya inaad isticmaashid marka fursadda daan ka helo insha Allah waa isticmaalaya aad oo maasta jazakallahu khayr